xafladan oo ahayd mid lagu daafurayay kala fadhiga afraad ee baarlamaanka Hirshabelle ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno kamid ah labada aqal ee Soomaaliya oo ay horkacayaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo midka aqalka sare Sheekh Cusmaan Bare Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle oo xafladan daafuray ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka Hirshabelle uusan lahayn goob ay ku shaqeeyaan isla markaana ay codsanayaan in laga caawiyo dhisidda xarunta golaha shacabka Hirshabelle. runtii waxaan rabaa marka baahida baarlamaanka waxa weyn baarlamaanka ma haysto runtii xafiisyo iyo waxyaabaha ugu weyn waxay tahay howlkan hadda arkaysan waa howl yani nololu tabarucay ay dad gaar ah leeyihiin oo shacab baarlamaanka dowladda ma laha howl ma laha xafiisyo ma leh runtii waxyaabo badan oo tasiiraad oo baarlamaanku baahan yahay ma laha waxyaabaha kale oo baahan waxa kamid ah gudiyada baarlamaanka waxay baahan yihiin maxay ahayd tayayn oo in loo sameeyo tababar loo sameeyo si ay hawshooda u gutaan. Mawlid Xuseen Guhaad gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee Soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa kelmado dardaaran u soo jeediyay maamulka Hirshabelle iyo golaha kala fadhigooda afraad maanta la furayay. waxaan u bogaadinayaa oo aan leeyahay horay u sii socda waayo-aragnimada iyo waxqabadka uu soo jeediyey gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle muddada yarayd uu jiray baarlamaanka Hirshabelle waxa ay qabteen waa wax la taaban karo oo ay ugu horeyso xulashada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha shacabka iyo golaha aqalka sare oo xubnahooda maanta qaar ka mid ah ay goobjoog ka yihiin guulaha la taaban karo ay sameeyeen ayay ka mid tahay Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo khudbad dheer ka soo horjeediyay ka soo qaybgalayaasha xafladan lagu daafurayay kala fadhiga afraad ee baarlamaanka Hirshabelle ayaa waxa uu sheegay in maamulka Hirshabelle ay horyaalaan shaqooyin kala duwan. annagu waa diyaar garoobaynaa tababarkii ciidamada waa bilownay booliisku waa dhisaynaa jidadka waa furaynaa waa naga go'an tahay باذن الله تعالى دولتنا la kaashan doonaa ciidamada amisom la kaashan doonaa laakiin reer Hirshabelle hadaysan ayagu go'aansan inay cadawgaas iska kiciyaan hadaysan go'aansan cid ka kicinaysa ma jirto runtii illa isu sheego waa amisom ka kicimayso dawlad federaalna ka kicimayso dawlad Hirshabelle ka kicimayso saddexdaas waa taakuleen dad xanaaqay oo dhirfay oo xaq rabo oo xaq darrada diiday ayay saddexdaas taakuleen karaan. ugu dambeyn Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa baarlamaanka Hirshabelle ku amaanay muddada ay dhisan yihiin iyo howlaha ay qabteen isla markaana faray howlaha horyaala in ay fuliyaan. waxaan idinku hambalyeeyaa kalfadhiga afraad oo maanta noo furmaya waxaan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntii diirneyd sida quruxda badan aad noo soo dhaweyseen runtii farxaday noo tahay inaan kasoo qiibgalno furitaanka kalfadhiga afraad ee baarlamaanka Hirshabelle waad la socotaan dhisidda dowladaha federaalka juhdi fara badan ayaa lagu bixiyey مسؤولين فربنا يا إسحاق دمبي سيقول بسم الله عين استيقظ بسم الله عين لما تقول الكبريت هذا هدف كلاجنا هاو حياة إن بالشوا ربا هذيك بالشوا ماشي بواسيس بوجارو إسلام كان عايز دورتان بوجان كودا ستوصى عليهم دورتان سيانا وعيانا بعين إن بوجان كي يدتني عليك معمول لها loo soo magacaabo oo dawladda u soo magacaabo ayagu inay qashaan oo ay doortaan. Cabdi Ahmed Macluub Bulsha TV Jawhar.